waxa uu ahaa kulan dhaqan oo lagu soo dhaweynayo odayaal ganacsato iyo culamaa u diin ka timi dowlad deegaanka Soomaalida waxaana lahaa qabanqaabada kulankan wabar Maxamed wabar Axmed oo wafdigan ku maamusay kulan qadan sharaf ahaa oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin iyo xubno kale oo kala matalaya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ugu horeyntii kulanka waxaa ka hadlay xubno ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaan Daahir Amiin Jeesow xildhibaan Yuusuf Xuseen Gamaadiid xildhibaan Maxamed Cali Cumar Cananuug iyo xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar dhamaantood waxa ay tilmaameen sida ay muhiimka u tahay in la dhowro dhaqanka dhawow wadankaadi koobaad ku soo dhawow adiga iyo wafdigaada adigaana soo booqday annagana markayna ku soo booqan doonaa insha Allah taala laakiin waxaan ku sheegaynaa inay shaqo ballaaran ku taalo oo cidda hawiye dhaqankeeda inaad midaysan laga rabo adigana aad hormood ka noqotid insha Allah taala aad idin soo dhaweynayna ugaasideena iyo wabaradeena ilaahay idin garab galo hadal kale ima furna inaan idin hambaliyeeyo kulan kalena aan maaragtay ku ballanno oon maaragtay si hoos u sheekaysano insha Allah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow oo dhankiisa madasha ka sheegay ayaa sheegay in ay tahay in muhiimad gaar ah la siiyo odayaasha dhaqanka inta kadib waxaan dhamaantiin idin soo gudbinayaa salaanta wabar Cabdi oo si toos ah la soo hadlay markuu idinka arkay TV-ga martiqaadyada la idin sameeyo ayuu wuxuu iga codsaday inaan idin soo gudbiyo salaantiisa guud ahaan iga guddooma ta kale waxaa si gaar ah aan rabaa halkan inaan uga mahadiyo awowgay marna wabarkii baadacadda ah wabar Maxamed wabar Axmed runtii beeshan beelweyntan ka timid Ethiopia waxay kaga duwan tahay beelaha kale oo isla ayaga ah oo wadankana in ay yihiin beelo isku xiran oo hal ugaas leh oo hal suldaan leh oo hal dariiq leh oo hal meel iskula dhimanayo kulley waa la socotaan aqoon gaaraan u leeyahay wadankaas waxaan si gaar ah uga mahadinayaa uguna mahadinayaa awowgay saasaan idhaahdaa anaga wabar Maxamed wabar Axmed martiqaadkan uu sameeyey